boqol qof oo ku mid ah bogtaale ka jarta murugishiimeedka beledkum baydhabo iyo hay-adda waamo relief may baan qiibiday joodariyaal sujaayado tarmuusye tooshashka iriida aftiinja ka shaqeeya ijirigaamo may baana munaasabad kooban oo deeqdun hay-addun bogtaalun ka qiibiyaasha ha ku qiib galay maamulka gobolka wasiiro ku tirsan dowlad goboleedka koonfur orse iyo wakiilka hay-adda waamo ihdan bundiida waliba waa wakiilka hay-adda waamo relief and rehabilitation may baana faahfaahin ku biyey qorshayaalka hay-adda eka eedan walanqobadowka bogtaalo kaalmada aan baahan kuwaasina waxaa soo xulay oo keenay wasaaradaha kala socda oo stateka ah ayagoo lagu soo xulayna kriterio ay dowladdu ay leedahay iyo hay-addii oo wada socdo waad arkaysaan dadka maanta wax loo qiibiyey insha allahu tacaala waxaan jecelnahay inaan maaragtay aan sii qaybino waxyaabo kale iyagoo aan ku salaynayno shuruucda wasaaradda waxaan leeyahay reer baydhabo aad baad maaragtay wasiiradda bilaanti iyo weliba xuquuqda bini'aadamka marwe nadiifo sheekh carbi oo yeena meelo ku hadali yamay baa sheegday in hay-adda waamo relief oo ah too dhawaanlay koyti beledkum baydhabo inin kuma hadnagaasa sida dhaqsida leh ayee markiiba ongorotay ini bogtaalo an qiibida alaabtun shalgadiisan taasoo yeesheegdii nadiifo ini wasaaraddeena ahmiyad gooni ayee ka sii doonto hay-adda waamo relief waana la shaqeeyi doonto hay-adda waamo relief and rehabilitation oo ee runtii hay-ad cusub oo hadda deegaanka ka biirtay jeelnantii oo lanqobarta bulshada ka dhaqan koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo iyo hadda meelan ku horeyta shaqo ku bilaabayo marka waliba fadayntan ciidanka mahadnaga hay-adda waliba fadaanan tiyo bulshada si cadaalad wal walaay adeegayo fuliyayaan iyo la kaaladaay maamulkii gaar ahaan hay-ado qusayta sida gaar ahaan wasaaradda qusayta sida wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waliba dareemo kortana inay wasaarado ku warhaay dhammaan xaaladda jarta oo dhabta dadka ka dhaqan degmada baydhabo ee guud ahaan koonfur galbeed marka unayna la shaqeeyaan hadhowayni wasiirka gargaarka iyo maarayowka masiibooyinka dowlad goboleedka musdhaf xaaji nuuro oo isiina meelo ku hadalay yamayba sheegay in hay-adda waamo relief iyo eetay hay-ad si degdeg ee ku jawaabtay baahida bogtaalo iidkan badan ee roogda beledkum baydhabo may bani ciidanka ammaanay in hay-adda waamo relief iyo ku faylata hay-ado badan oo roogan beledkum baydhabo haanaasoo ilaa hatabalon ku hayna xataa jawaab iyo haangnageen wasaaradda ilow waamo relief iyo nagati hay-ad dhawaanlay koyti waana markiiba ku jawaabtay baahada bogtaalo waxaan rajaynayaa inay howshiis meeshayn ku ekaanin sida wasiiradda oo habeenka tiri howshaas inaad sii wadaan oo sii balaarisaan degmooyinka koonfur galbeed meelaha u baahan inay gaartaan taasaan rajaynaya insha allah maxamed aadan waa aad u xilqaamay oo dareemu qaba qofka markuu dareemu qabo wax si fiican ugu samaynaya boqolka qoys oo hadda la siiye gargaarkan waxaan rajaynayaa isbuuca soo socda ama mar kale soo socda 200 ama 300 sama 300 soo socda marka reer baydhabo xoogaa wax maleena xoogaa waana san doonaan xoogaa waana neefsan doonaan insha Allah taala gargaarka ilaahay idinkana khayr Allah idin siiyo tanga awalnin ilaahay ma hadsantiin hadan ilaahay ma hadlay ku roon rabbaga ku sugan isin ku siiyo ku sugan idana baaha mashaqay isku korn ilaahay ma hadlay beeruwadan loo ka beerkida taawase خير الله السيد هذا نسيسي درموس دري باع يوضري عاك وأمه إليها أفرية تركي بقولك بسلام أنا مداري صفية أحمد محمد قدومي كيا كام كلامي كام ينبغياش الآمي كي كاميلا رايوس يعني ميري ما يبان سيد دخو إيد بركانه ده تصوكم ده جودري درن باع ترموس سولار توش mukhtaar sheeg eedan weerow video aftaan barshawiney baydhabo jinaay